السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناب كداون سما بلد اوفيشال هدي تامر كو هوريسو فضlan سبسكرايب inoo saar asxaabtaada la wadaag waxa inoo socday cashirkii turkiga ahaa ee aan ku baranaynay luqadda afka turkiga maanta clip cusub waa idin wada asxaabay oo dhanka grammarka ka dhisaya insha Allah marka haddii aad videogan aad ka heshaan fadlan asxaabtiin la wadaaga maanta waxa ka hadlaynaa waxa adiga leedahay waxa ayaga leeyihiin waxa aniga leenahay yani waxyaabaha oo mar walba adiga wax adiga milkiilaha adiga u leedahay qaabka turkiga loogu sheego aan baranaynaa marka nala socdo ku maasantiin marka asxaabay hadda waxaan ka bilaabaynaa waxa yani ben oo ah waxa laga wadaa meeshaan aan idinku qoray aniga sen oo bis sis onlar oo laga wado san oo ah adiga oo ah isaga ama iyada bis oo anaga ah sis oo idinka ah onlar oo iyaga ah marka hadda markii lagu daro maxaa lahay dhanka grammar ahaan hadii loo akhriyo waxay noqonaysaa aniga markaan rabo aniga wixiyga markaan dhahay amal binim waaye wixiyga sinin waxaaga unun wixiisa ama waxeeda bizim waxeena sizin waxiina iyo onlar oo ah wuxuuda marka hadda jumla ahaan idin gelin doona kulay qaabka jumlada loo geliyo rabaad inaan idin kaga waramo markaan rabo inaan dhaho macnaha hadda hadii aan wax yar kugu soo celiyo bensan o bisis onlar marka hadda waxaan dhahayaa aabahayga oo kale hadaan rabo inaan dhaho babam markasta aad emtaas isticmaalaysaa marka adiga iska hadlaysid emtaas isticmaalaysaa marka annem adhehaysaa yani annem ah oo hooyadeeda marka dhehaysid binim annem binim oo soo qaadana oo wixiyga ah waxaad leedahay binim annem adhehaysaa hooyadeeda markaas waxa dhehaysaa binim babam aabahayga eed mugtay sinin baban adiga aabahaaga sinin annen adiga hooyadaada marka aniga iyo adiga marka hadda waxaan noo xigayso isaga ah qof maqan macnaha ama ayada qof maqan ah marka dhaheena macnaha maxaa lahayn unun babasi asiga aabihiisa unun annesi isaga hooyadiisa marka waxaan dhaheena unun babasi aabihiisa iyo hooyadiisa marka hadda waxaan raacinaynaa unun anahtaari isaga furihiisa unun evi isaga gurigiisa qof maqana laga hadlayo macnaha ama iyada gurigeeda unun markasta waxa loo isticmaali karaa gabar iyo wiil labadaba la isticmaali karaa marka hadii aan sii wadno asxaabiga cashirkeena bis oo ah anaga marka bizim waxa waaye anaga wax anaga leenahay markaan waa jamac maxaa dhaheena bizim babamuz anaga aabaheena anaga hooyadeena inta ku qoran tahay bizim annemiz marka meeshan dhibic waaye marka asxaabi hadii aan sii wadno marka asxaabi bizim waa ka soo baxnay sizin oo ah idinka macnaha sizin anahtaariniz sizin babaniz sizin wax kasto macnaha dad laga hadlayo ma fahanteen marka sizin anahtaariniz waxa waaye furihiina furiyaashiina ee naqanaysa ma fahant furihiina ama furiyaashiina sizin babaniz aabihiina sizin aneniz hooyadiina marka sizin waa ka soo baxnay onlar oo ah onlar galeena oo ah macnaha ayaga dad badan marka onlarin babalarin onlara galeena hadda marka onlarin wax ayaga ay leeyihiin waa marka onlar babalare ayaga aabahooda onlar babalare ayaga aabahooda onlar evlare ayaga guryahooda marka asxaabay cashirkeena maanta intaanu inoogu egyahay hadda waxa soo qaadana waxay tahay waxa soo qaadanay sida hore kugu sheegay waxa adiga leedahay waxa aniga leeyahay waxa ayaga ay leeyihiin waxa asiga uu leeyahay iyada ay leedahay soo qaadanay marka wax yar aad soo dulmara marka benim waaye ben oo aniga ah benim wixiyga san oo adiga ah sinin waxaaga
oo isaga ama iyada unun marka asxaabi unun oo micnaha isaga ama iyada ah marka oo markasta waxa u isticmaali kartaa iyada ama isaga unun aad dhehaysaa bizim oo anaga ah sizin oo idinka ah onlaarin oo iyaga ah marka asxaabi waa ku mahadsantiin daawashada videogan fadlan waxaan idinka codsanayaa inaad share gareysaan. Thank you for watching.